الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الحمد لله إلهي بمهد بشي رمضان بركة سنيد أيها كابقة نقصوا هيسا وبالبركة سن وفرصة runtii aad iyo aad qaali u ah oo sanadkii hal mar ina soo maraysa. Ma garanayno sanadkan hadduu ilaahayna gaadhsiiyo sanadka dambe inuu ina gaadhsiinayo oo nabad ku gaadhayno ilaahay baa yaqaana. ma garanayno in badan oo sanadkii hore inala soontay baa maanta adduunka dhaaftay oo tii ilaahay ku timid, tii xaq ahayd ay ku timid. fursadda marka sanawiga ee qofka muslimka ah cimrigiisa sanadkiiba mar soo maraysa waa fursad runtii qaali ah. waa fursad u baahan dadaalkeenna iyo juhdigeenna iyo waqtigeenna inaan isugu geyno sidaan uga faa'iidaysan lahay. innaga xaasaskeenna, carruurteenna, saaxiibadeen, qaraabadeenna, dariskeenna, dadkana aan khayrkeeda iyo wanaaggeeda ula wadaagi lahay. bisha ramadaan allah tabaaraka wa tacaala waxa uu ka doortay bilaha kale lianna ilaahay caza wajal khalqigiisa uu kala fadilay. siduu usbuuca uga doortay bisha maalinka jumcaha ayuu bilahana ilaahay tabaaraka wa tacaala uga doortay bisha ramadaan. waa bil qaali ah, waa bil ilaahay caza wajal uu soo dejiyey kitaabkiisa qur-aanka kalaamullah, bishii la soo dejiyey wey. bishaas qiimaha badan ee qur-aanka kariimka lagu soo dejiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, nabigeenna sala allahu calayhi wasalam oo ah afdalu lambiyaai warusul. kitaabkii ugu qiimaha badnaa ayaa ramadaan lagu soo dejiyey nebigii ugu fadliga badnaa calayhi salaatu wasalaam. wuxuu nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan qofkii maalinteeda ku camira soon oo faralkii ilaahay saare ka soo baxa, habeenkiisana ku camira cibaado oo salaatuleyl iyo qiyaam iyo qiraa'o iyo cibaado ku camira, ilaahay tabaaraka wa tacaala dembigiisii hore inuu dhaafay. runtii waa masale qaali wey. bisha ramadaan mana adka, wax adagna maaha. bidaliili qowlihi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaama macduudaat. ayaama macduudaat. soomku aada buu u sahlaya marka laga tago caafimaad in laga helayo, taqwo iyo khayr laga kororsanayo. in la soomaaban adkaynba ilaahay wuu fuduydiyey tabaaraka wa tacaala. tusaalaha ilaahay bixiyey ee laynagu tusayo siduu soonku u fudud yahay, horta koow waxaa la yidhi soonku waajib buu idinku yahay. si ayna dadku yacni cabsi iyo argagax uga qaadin ba waxaa la yidhi kamaa kutiba cala aladiina min qablikum. ummadihii hore baa iyagana lagu waajibiyey, iyagana waajib buu ku ah. markaaba waxaa kugu soo dhacaysa horta shaygani in la sameeyo hortaa. shayga hortaa haddii la sameeyey waxaad ogaanaysaa inuuna adkayn oo waxaadna aad samayn karta inuu yahay. haddana ilaahay wuxuu ihi ayaam, waa maalmo, habeenadu kuma jiraan. maalmihiiba haddana waxaa la yihi macduudaat, ma aha forever, waa maalmo tirsan. waa justi maalmo tirsan wey, ama 29 ama 30 wey. iyadoy sidaa tahay oo uu soomkii yahay ayaam, oo haddana ayaamahaasi ay yihiin macduudaat oy tirsan yihiin, ba haddana qofkii cudurdaar iyo hawle ku timaado ba ilaahay special case buu ilaahay si gooniya uga fudaydiyey isaga. aayadaha aakhirkooda faman kaana minkum mariidan aw calaa safar faciddatu min ayaamin ukhar. qofkii waxaa la yidhi xanuunsan ama musaafira wuxuu sharcigu ruksad u siiyey inuu maalmo kala soomo. weliba intaa waxaa sii dheer, qofka xanuunsan ee xanuunkiisu uu yahay musminku waa xanuunka aan rajo laga qabin qofku inuu ka bogsado, soonkana uuna la awoodin, sharcigu wuxuu qabaa inuu mud raashin ah, yacni sacab raashin ah, wax kiilo ka yar, xuduudu kiilo agaheediya ka yara, inuu bixiyo ama maalinkii miskiin quudiyo. fafidyatu طacaamu miskiin wacala aladiina yutiiquunahu fafidyatu طacaamu miskiin. dadka noocaas oo kale ee xanuunada joogtada ah qaba, sida dadka sonkorta qaba ee aan la xamilaynin, aan la awoodin inay soomaan, soonka aan qaban karin, ama xanuunada kale qaba ee aan la awoodin inay la soomaan, ama da-dii intay ka badatay heer gaadhay ayna soonka xamili karin,
dadka noocaas oo kale aan ilaahay uu fududeeyay ma jacala calaykum fi diini min xaraj diintu way fududahay yuriidu allahu bikum al-yusra walaa yuriidu bikum al-usra ilaahay diinta wuu fududeeyay tabaaraka wa tacaala soonku walaalayaal sharcan waxa weeye in waxyaabaha qofka afuriya oon arki doona haddii ilaahay yidhaahdo inuu iska ilaaliyo ayaa soon la yidhaahdaa laga bilaabo salaadu markay dilaacdo ilaa qoraxdu ka dhacayso isaga oo cibaadana niyoonaya hadduu cuntada qofku iska daayo oo caafimaad ahaan isaga daayo oo dhakhtarku kula taliyo ama uu ka cabanayo dhib haysto oo nooc mudaaharaada ay tahay oo dhibaato haysata uu kaga cabanayo taasi haddii cibaado ma aha cuntada markuu qofku iska daynayo waa in ay tahay biniyati alcibaada waa inay cibaada ku jirtaa ood ajir niyoonayso sababtoo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat haddaad cuntada si kale adigu isaga dayso cibaado ma noqonayso waa inay niya la socota sababtoo cibaadadu niyadu waxay kala saartaa waxyaabaha caadada ah iyo waxyaabaha cibaadada ah niyaddaa kala saarta waa inay marka cibaadadaas ay niya la socotaa soomku waa waajib waana min arkaan alislaam sidaad ogtihiin shanta arkaan alislaam buu kamid yahay sida xadiidka ibni cumar wuxuu waajib ku yahay qof kasta oo muslima qaangaadha baaliqa markaan leenahay qaangaadhka kama wadno wadamada qaarkood sida cultureka iyo dhaqanka u ah reer galbeedka 18 iyo kowen kama wadno qaangaadhka islaamkan ka wadna oo qofku islaamku waxyaabo lagu qaangaadhaa jira xagga markay noqoto da-da 15 baa islaamka lagu qaangaadhaa waxaa dhici karta siyaabo kale qofku inuu ku qaangaadho oo gabadhii ay caado hesho iyadoo 15 gaadho soonkii waajib buu ku noqonaya marka waxyaabihii lagu qaangaadhayo qofka hadduu ku qaangaadho qofku waa inuu yahay muslim soonka waajib ku yahay qaangaadh waa inuu yahay waa in uu muqiim yahay qofka soonku waajib ku yahay yani waa inuuna safar ahayn waa inuuna xanuunsanayn oo una bukin xanuun yani soonka u diidayo oo adag intaas marka la helo dumarka iyagana waxaa si gaara looga rabaa marka soonku waajibka ku noqonayo inay daahir ka tahay dhiigga caadada iyo dhiigga umusha labada inay daahir ka tahay haddayna labada daahir ka ahayn oy dhiigga caadada qabta gabadhu ama dhiigga umusha ay qabto soonku waajib kuma aha hadday soontana ka asixi mahayo waana dembi inay soon isku daydo dhahdo waan soomayaa maalmo kaluu sharcigu qaba inay qalayso sidaasuna nabigeenu ina baraya calayhi salaatu wasalaam ujeeddada soonka walaalayaa laga leeyahay iyo xikmadda ugu weyni waxa weeye waa inaynu cuntadan iyo cabitaankan waxa la isaga daynayo waa in ilaahay aynu ugu dhowaano alla ka cabsi waa in qalbigeenna taqwo ay gashaa waa inaan ilaahay u dhowaanaa waa inaan bisha ilaahay xusuusanaa waa inaan xusuusanaa 11 bilood oo cunto soo cunaynay inaynu ilaahay darti bishan isaga daynayno waa in qalbigeenna marka cabsi ay gashaa waa inaan badinaa daacada waa inaan badinaa quraan akhriska ramadaan waa inay inooga duwanaataa 11 bilood oo kale waa inuu farqi u dhexeeya bisheena ramadaan iyo 11 bilood oo kale waa in laga dareemaa nolosheena waa in laga dareemaa guryaheena waa in laga dareemaa caruurteena waa in laga dareemaa xayaatadeenna waa in laga gartaa bisha ramadaan qiimaha ay leedahay walidaalika baa ilaahay leeyahay lacallakum tattaquun waxaa soonka la idinku waajibiyey waa inaad ilaahay ka baqdaan ilaahay caza wajalla dan kama leh cuntada oo la iska daayo iyo cabida oo la iska daayo haddaan qalbiga cabsi ku jirin oo qofku xubnihiisii kale uuna dhowraynin indhihiisii uuna dhowraynin carabkiisii uuna dhowraynin waxyaabihii ilaahay ka xarimay iska ilaalinaynin only raashin iyo cabitaan la iska ilaaliyaa ilaahay wuxuu ku fali maayo tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu eegaya waa qalbigeenna walidaalika baa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofka aan ka tegin markuu sooman yahay afxumada waxyaabaha zuurka ah ee xun ee dembigii iyo beenta ah qofka aan iska dhaafinen iska ilaalinin ilaahay waxba ku fali maayo danna kama leh raashinka cuntada iyo cabidda inuu iska daaya halka waxaan ka qaadanaynaa walaalayaal waxaa laga soomaa ma aha cunto keliya ma aha waxaa laga soomaa cunto keliya ma aha waxaa la rabaa jawaarixdeenna iyo xubnaheenna oo dhan inay soomaan sida afkeennu uu cunto uga soomay waxaa la rabaa indheheennu xaaraanta inay uga soomaan sida afkeennu uga soomay cuntada waxaa laga rabaa dhagaheennu inay muusig iyo qashin ay ka soomaan iyo waxaan la dhagaysto waxaa la rabaa xubnaheenna oo dhan inaynu ka soonno
وحبنهن أردن أي إلهي ودوانا تبارك وتعالى dad baa jira fara badan ilaahay ay naga badbaadiyo bisha ramadaan marka ay gasho waqtiga meeshay ka faa'iideysan lahaayeen waqtigooda oo dhan kulmiya aynu waqtiga dilo kulmiya turub kulmiya dumlad kulmiya hurdo kulmiya waxyaabo aan macno lahayn oo qiimo lahayn oo adduunyadoodii iyo aakhiradoodna dhibaato mooye aan haba yaratay wax dheef u lahayn waa inaynu nolosha noocaas oo kale walaalayaal iska bedelaa waa inaan masaajidda nimaadnaa oon camiraa waa inaan qur-aanka akhrisanaa وين صدقة الله بحنا وين الوالد كانوا بارين ما سمعنا بشري وبشي قفكو ريفيو سمعين لهاوي وبشي إنه ريفيو سمعين لهين إن رش إنه أنا نسدي لهين رمضان تيهورة وحبلان بعد مسجريسي رمضان ترى إلهي كو سوقلي كو يتبان كي بلاد الله صوت في وحبلان ما كآخر دمي سيد يسوع سحلا سيد يسوع هجا جنة سيد متوبت كنا وبشان حساب تمي لهين ويولا له بشان وبشي الحساب تمي لها بش رمضان waxay ku sugnaataa laba arrimood mid in bishii shacbaan soddonkeedii ay dhammaato haddii markaa ramadaan automatically way soo gelaysaa looma baahnaba in la raadiyo sida nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam suumuu liru'yatihi waftiruu liru'yatihi aragtina ku sooma aragtina ku afuro ama bisha shacbaan 29 markay tahay inaynu aragno bishii ramadaan oo soo gashay ilaa bisha 29 way ku dhammaan kartaa صدقنا ويكون ما كرتا شرعك وحن صح أهين ومثلا عن صح أهينا إن الاعتماد فرق يعني الحساب الفلكي يعني كلام الكلية إن الاعتماد اللي هذا we don't care أنا بشدين كمان إن كلام الك ما بسومينا كلام الك والله كلام يستنكره ووحلا كلام يستنكره ووحي له إنه سهل حساب يقرح هذا إيه منازيش هذا إن لبرته أو محاضرتك أي وحكوا هذا وعلم إلهي ذاتك أفري لكن الله عز وجل بشهر رمضان صون كذا وحو كحر رؤية بشهر رمضان إن بشي الله إلهي هلال بكحر هلال بكحر وحتكون كرنا يسأل يسات هاي أو حساب تفرقة يا كلندر كلي أنا لويا كان كرن وحتكون كرن كرتها وبقى رمضان النبي صلى الله عليه وسلم وتقوليه فإن غم عليكم هدي ضرور إيعاد أي إذن كقريان بشي ماشي كسو بحيس أو ضروري اسكو قدبتو أو واحد إذن كقريان فأكملوا عدة شعبان 30 يوما بشهر رمضان صدهم كذا لما يستلم هدي كلام در مركز لو سوي كريه حساب كليه ما حيكردين له هيد حديث كقيبتي صدم بقى هدي ضروري أي ماشي إذن كقريسة ترى بوحي هدي مرة والبان كلام در سوي كريه حساب هذا إنه بشي عادي ضروري إنك قريسة إنك قرن معنا ما سميسان معنا ما ينسميسان مدة لبعض مركو النبي وليه عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وحيليه العلماء اللقضوا أرجى الرؤية فعل كاس ومن رأى وحيليه فعل كرآن نحو أهان لبا معنو فائدية لبا معنو فائدية وحوية مذي وأوغانشو رأى وبمعنى عالم إيه أوغانشا مركا وحي قادتا وحي نقطان لبا مفعول بقادتا سيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وكذا لكن رآه هذا هي بصرية أو إيش اللي أركه وأنا ميدا هذا اللي جيده هل مفعول بقادته سمعت تاسو حتى كتوسا يسأل لجوضة إيش وصوموا لرؤيته تفسير كم مركب وحال لجحوا بنانا يا أورانا يا صوموا كصوم لرؤيته بش أوجان شهر أو مركب علماء قاركودا أيود ليشان هي أوجان شهر حساب حتى إلى تكون أوجاتان واصح أيود ليشان هي نحو أهان يدليل أهان لبضا بوا لجحوا بنيه sababtoo صوموا لرؤيته وفعل هل مفعول قادنيا taasoo ina tusinaysa aragtidii isha in laga wado ee aan laga wadin ogaansho xisaab lagu ogaaday waa muhiim marka arrinta in lagu baraarugsanaado sida daraadeed falaga waa la kaashan karaa iyo xisaabtan falakiga iyo kalandarada waa la kaashan karaa way qiyaasi karaan qolyahaasi wadamada laga arki karo iyo wadamada ay u badan tahay bishii in laga arko way naga caawinaysaa laakiin kaligeed kuma filna in lagu soomo waa cibaado waxan cibaado weey mid labaad bisha aragtideedu waxaa ku filan hal qof oo cadaalad ah hadduu arko way ku filan tahay waxba qasab ma aha in la dhaariyo haddii qof cadaalad uu arko alxamdulilah sida xadiidkii ibnu cumar uu tilmaamayo bisha ramadaan fadaa'il badan bay leedahay fadaa'isheeda waxaa ka mida waan dul maraynaa wax yar waxaa ka mida waa bishii ilaahay qur-aanka kariimkaa soo dejiyey ee bilaha kale ka doortay
waxaa ka mid a qodobka labaad nebigu sal ly slam wuxuu inoo sheegay bisha ramadaan shayaadiinta in la xidhxidho gaar ahaan kuwooda abaaliista ee madaxa adag naarta albaabadeedana la xidho jannada albaabadeedana la furo buu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a fadaaisheeda 3 qur-aanka iyo soonku inay qofka qiyaamada u shafeecayaan ilaahay uga ergeynayaan tabaaraka wa tacaala qofkii qur-aanka ku dadaali jiray soonka ku dadaali jiray aakharo soonkii iyo qur-aankii inay ilaahay kaaga ergeynayaan oo ilaahayna ergadooda aqbalayo oy ku shafeecayaan ilaahay haynugu daro tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a soonku waxyaabaha cajaa'ibta uu leeyahay ajirkiisu waa unlimit ilaahay wuu laalaabaya ajirkiisu ma xisaabsana walidaalika buu ilaahay tabaaraka wa tacaala leeyahay kullu camal ibni aadama lahu ila soom fa inahu lii wa ana ajzi bih waxayna yidhahdaan culimmadu soonka waxaa ku dhan qaybihii sabirka oo dhan shahwadii baa laga sabrayaa qadihii ilaahay baa lagu sabrayaa iyo qadarkiisii iyo gaajadii waxaa lagu sabrayaa muxuu ahaa sabirka qaybihiisii oo dhan daacadii baa lagu sabrayaa sabirkana ilaahay wuxuu yihi innamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab sabirkii oo dhan baa soonka ku dhan saddexdiisii qaybood sabirka noocaasana ilaahay tabaaraka wa tacaala ajirkiisa si xisaab la-aana ayuu ilaahay qofka u siiyaa tabaaraka wa tacaala ilaahay baa isu tiiriyey oo yidhi fa inahu lii anigaa leh soomka dadka soome ee soomka ku dadaala ilaahay wuxuu u sameeyey hal albaab oo special door ah special gate oo ay jannada ka galaan ayuu ilaahay u sameeyey oo rayaan la yidhahda magaciisa waxaa ka mid a fadaaisha bishan in isbedelka qofka sooman afkiisa ku dhaca sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay agti wax kasta oo caraf leh miskiga ugu carafta badan qofka isbedelka afkiisa ku dhaca uu kasii caraf badan yahay waxaa ka mid a ramadaanka bisha ramadaan fadligeeda in laylatulqadri ay ku jirto oo 1,000 bilood ka khayr badan waa taqriiban 83 sano khayrkii aad samayn lahayd 83 sano hadduu ilaahay ku gaadhsiiye khayrkii aad samayn lahayd waxaa ka ajir badan oo ka khayr badan habeenkaa inuu ilaahayna waafajiyo tabaaraka wa tacaala habeen qaaliya wey habeen qaaliya wey khudabka kale aan ku tilmaami doona insha allahu tacala waxyaabaha aan filayno waxyaabaha u baahan inaan ogaano walaalayaal bisha ramadaan waxaa ka mid ah kow habeenkii waxaa waajiba in lasii niyeysto niyadana waxaan ka wadnaa inaad qalbiga gashato ood ku tala gasha berri inaad soomayso niyaduna waa qalbiga ee ma aha wax lagu dhawaaqo sax ma aha inaad dhahda nawaytu sawma qadin can adaa'i fardi shahri ramadaana hadihi sana lilahi tacaala waxaa nebigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam asxaabtii mayna dhihin waxayna dhihin maxaa kugu wata waxayna saxaabadii dhihin nebigiina dhihin calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ayna ugu dhawaanin adigu maxaad ku falaysa laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasan wixii dadkaa ku filaaday ha inugu filaado marka niyada waa qalbiga habeenkii baa la rabaa marka in lasii niyeysto oo qofka uu kusii talagalo waxaa kaloo muhiima qofku inuu iska ilaaliyo waxyaabaha soonka ka jabiya waxyaabaha soonka ka jabiya ee soonka jabinaya waxaa ugu daran uguna horeeya in galma ay dhacdo oo dadku isu tagaan yani jimaac inuu yimaado oo qofku yani galmo uu sameeyo maalin ramadaan ah soonkiisi wuu jabaya waxaa ka ratibmaya dhowr arrimood waana dembi weyn wey waxaa ka ratibmaya kow soonkii inuu jabo horta 2 in la qalleeyo 3 kafaaro inuu qofkii la yimaado oo uu wax bixiyo iyo maalinkaas oo dhan inuuna waxba cuni karin intaasoo masale ayaa ka dhalanaysa oo uuna odhan karin kolley waan afuray aan wax iska cuno looma ogola waa mamnuuc wey waxyaabaha kale soonka jabiya waxaa ka mid a alaklu washurbu in wax la cuno ama wax la cabo wax kastoo la cuno iyo wax kastoo la cabo waxaa soo gelaya waxyaabaha nafaqada jidhka siiya aan afka laga qaadanin sida faleebooyinka la isku duro ee dadka lagu xidho ee qofka energy-ga siiya glucose-ka ah ee qofka energy-ga siinaya waxaa ka mid a in qofka lagu xidho dhiig isagoo dhiig la-aan ay hayso ama surgery ku socdo in qofkii dhiig lagu xidho soonka uu ka jabinayo inuu iska ilaaliyo marka qofku waxyaabahaas oo dhan waxaa ka mid a waxyaabaha ay tahay in la iska ilaaliyo ee muhimka ah muxuu ahaa waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mid a qofku marka uu weysaysanayo sanka inuu biyaha ku fogeeyo sanka qofku inuu biyaha ku fogeeyo almubaalagatu fi listinshaaq ama wax sanka iskaga shubo sidii xadiidkii laqiid ibni sabira min xadiidi cinda abi daawuud bisanadin saxiix nabiga sala allahu alay wasalam waa ku lahaa wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'im
haddaadan soomanayn istinshaaqa sanka aad biyaha gelinaysa markaad weysaysanayso xoog ugu caydh xoog u sandaarso haddaadan soomanayn macnaha haddaad sooman tahay iska ilaali wey waxyaabaha soonka jabiya waxaa ka mid a muxuu ahaa gabadhii hadday caada ku dhacdo ama umushii ay umusho waxyaabahaasna waa waxyaabaha soonka jabiya wey waxaa ka mid a waxyaabaha soonka jabiya inuu qofku kas isaga matajiyo mataga iska dondoono ama cadayga xoog isugu caydhiyo ama wax uu ku matagayo ursado inuu isagu sabab u noqdo qofku inuu matago ama uu ursaday ama carab ku saaray ama yani caday buu isku caydhiyey wax uun keeni kara inuu matago qofku hadduu sameeyo soonka uu ka jabaya laakiin matagu hadduu kaa qaalib noqdo oo qofka matagii soo dhaafo waxaan isaga choicekiisa ahayn hadduu matagii soo dhaafo soonku kuma jabayo waxaa ka mid a waxyaabaha soonka jabiya inkastoo masale khilaafiya ay tahay muxuu ahaa istibnaa manida inuu qofku iska keeno masturbation inuu sameeyo oo manida qofku iska keeno sax ma aha waa arrin xaaraana weeye lama ogola soonkiina wuu ku jabayaa cinda jamaahiiri ahli lcilm waana sida alimaam alcalaama ibnu qudaama raxmatullahi calayhi xataa uu gaadhsiinhayuu leeyahay khilaaf masaladaa ku jira ma ogin soonku inuu ku jabayo lakin waa masale khilaafiya wey sidaasaana raajix ila wallahu aclam inuu soonku ku jabayo sababtu waxa weeye nabigu wuxuu yihi sala allah alay slam xadiis ulqudsigii ilaahay tabaaraka wa tacaala yadacu shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli shahwadii baa shahwadii qaybaheedii oon la kala qaadin iyo cabidii iyo cuntadii baa la israacay qofka waxaa sameeyana waa qof shahwadiisii gutay wey marka soonku wuu jabaya waa inuu qofku iska ilaaliya waxyaabaha soonka aan waxba u dhimaynin ee soonku uuna ku jabaynin waxaa ka mid a cadayga saacad kasta oo qofku uu cadaydo karaahana ma aha wax dhibana ma leh kumana jabayo haddaadan isku caydhinin cadayga oodan ma tagin waxaa ka mid a cunto uu qofku karinayo inuu dhadhamiyo milixda ama sonkortu inay ku badan tahay kadibna iska tufo iyadana waxba dhib male waxyaabaha soonka jabinayn waxaa ka mid a qaaca cunto uu karinayo iyo qiiqeedu inuu ku baxo iyaduna dhib male waxyaabahan soonka jabinaynin waxaa ka mid a muxuu ahaa dawadan laysku buufiyo dadka asmada iyo neefta qaba ay isku buufiyaan iyaduna dhib male sababtoo ah ma aha shay liquid oo caloosha gaadhaya maaha sidaasay fatwoonayaan culimo fara badan oo mucaasiriina inayna waxba dhib lahayn waxyaabahaas oo dhan marka dhib male waxaan dhib lahayn luqluqashada inuu qofku biyo ku luqluqdo ama madaxa biyo iskaga shubo ama sida raajixa min aqwaali ahli lcilmi jamaahiiru ahli lcilmina ay qabaan inaad qof dhiig ku caawiso dhiig u shubto iyadana sida raajixa jamaahiiru ahli lcilmi ay qabaanna soonkii kaaga jabi maayo walow masale khilaafiya ay tahay qofka dhiigga qaadanaya loo shubayo dhiigga lagu xidhayo wuu ka jabayaa sababto waa qof cunto iyo cabid qaatay wey laakiin qofka dhiigga shubaya siday culimmadu u badan yihiin muxuu ahaa soonkii kuma jabayo waxyaabahaas oo dhan aan leenahay soonka way jabiyaan wuxuu soonku jabayaa kow marka aad cilmi u leedahay adoon cilmi u lahayn waxaan inuu soonka jabiya aan aqoonba u lahayn sida qof islaamnimada ku cusub oo kale jaahil oo kale soonkii kaama jabayo xukunkii sharcigaaba haddaadan garanayn cadiy ibni xaatim aطaa'i radia allahu canhu waad garanaysaan markuu ilaahay soo dejiyey wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi markay soo degtay intaasi min alfajri intayna soo degin qayb mar dambay soo degtay markaasaa wuxuu u qaatay in laga wado laba xadhig oo caadi ah iska cuno o iska caba ilaa ay labada xadhig idin kala caddaadaan labada xadhigna waxaa laga wadaa habeenka iyo maalinta yani ilaa waagu ka baryo isagu wuxuu u qaatay laba xadhig oo caadi ah subax isaga cunayo isaga cabayo barkinta hoosteeda intuu laba xadhig gashaday mid madow iyo mid cad ba markuu waagu si fiican u iftiimay labada xadhig uu kala garto buu cuntada iska daayaa markaasuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ina wisaadataka la carid barkintaadu aad bay u ballaadhan tahay yani waa hadal sarbeeba wey maxaa kugu dhacay wey marka nabigu sal ly slam soonkii ninkii sidaas uu ku soomay qallee ma dhihin hadduu soonkiisii ka kac ahaa qallee baa la dhihi lahaa waxaa loogu cudur daaray marka oo soonkiisii uu la jiraa aqoon la-aan waxaa kaloo ka mid a jahliga qofka loogu cudur daarayo aljahlu bilxaal xaaladda uu qofku ku sugan yahayba hadduuna ogeyn maxaa ka mid a masalan wuxuu u qaatay qoraxdii inay dhacday isagoo u haysta inay qoraxda dhacday baa afuray mar dambe oo daqiiqada kadib ay daruurta kasoo dhex baxday qoraxda daruurta kasoo dhex baxday soonkiisi sidee buu noqonaya kama jabay kama fi saxiixi lbukhaari min xadiidi asmaa waxay leedahay radia allahu canha waktigii nabiga sala allahu alayh wasalam ayaan afuray maalin waxoogaa daruura jireen markaan afuray bay yaa qoraxdii dib laga arkay
وضرورتي أي كصباح النبي صلى الله عليه وسلم هلا قال لي مدي هدو صونكي جبي هلا قال لي الله دهلا مركا دتك waxaa loogu cudur daaray bil jahli aan il hal halka ay ku sugan yihiin bay jahil ka yihiin marka taas oo kale waa wax qofka loogu cudur daari karo waxyaabaha shardiga ka labaad waxa weeye qofka isagana ay shardi tahay markuu afurayo waa inuu is xusuusan yahay qofka hadduu is ilowsan yahay soonku kama jabayo isagoo is ilowsan buu wax cunay ama uu wax cabay soonkiisii ma jabayo laakiin isagoo afka ku hayo oo cantuugsan hadduu is xusuusto ma liqaya uu tufaya qof wax cunaya oo sooman ama wax cabaya haddaad aragtana muxuu ahaa waad xusuusinaysaa meesha inagu aan dhahno ka aamusa xusuusinayna sax maaha waa in la xusuusiyaa sababta waxaa weeye waa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar qofkani khalad buu isagoon is ogeyn sameeyey ka qabo waxaad dhahdaa sax maaha war waad soomanayd laakiin ha loo daaya sax maaha qodobka saddexaad qofku markuu waxyaabaha muftiraadka uu soonku kaga jabayo waxa weeye waa inuu isagu doorto ikhtiyaarkiisa waa inuu ku doorto haddii qofka lagu qasbo inuu afuro oo naftiisii ay riski gasho oo halis uu galo oo lagu qasbo wax afuriya inuu sameeyo haddii qofkaa soonkii kama jabayo muxuu ahaa allah tabaaraka wa tacaala uu ka dulqaaday ummadda wixii lagu qasbo in allaha rafaca can ummati alkhata'a wannisyaana wama stukrihu calayh